qowmiyadda jareer weyne ee ku dhaqan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka codsatay in meesha laga saaro hanaanka 4.5 ay ku tilmaameen dulmi iyo xaqdaro aan loo dulqaaday karin. daa'uud yuusuf nuur oo ka mid ah waxgaradka beesha afar makane ee qowmiyadda jareer weyne oo maanta warbaahinta kula hadlay degmada beledweyne ayaa sheegay in dulmi aan loo dulqaaday karin ay tahay in xaqa qowmiyadda dhan leedahay la siyaasadeeyo oo dad buuxa lagu tilmaamo nus. waxaan baaq u soo jeedinaynaa dowladda federaalka khaasatan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka haddaanu nahay beesha jareer weyne gaar ahaan beesha makane waxaan dowladda federaalka u sheegaynaa dhammaan waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta iyo wixii dad midna iyo damiir leh u soo jeedinaynaa in aan annaga marnaba raalli ka ahayn 4.5 wax lagu qaybsanaayo. dulmiga aad samayseen dad dhan ayaad waxaad dhahdeen nus ayaad tihiin waa dulmiga aanan iska qabanaynin oo haddana rabtaan inaad meelmarisiin idinkoo og in waxaas ay dulmi ay yihiin marnaba annaga raalli kama nihin dawladdana ma lagu salayn karo raallina kama nihin 4.5 mana qaadan karno inta dulmiga aad ku socotaan oo xaqa aad geeska maraysaanne annaga waxaa idin caddaynaynaa inaan raalli ka noqonaynin in mar dambe beel iyo xaquuqdii ay leedahay in la siyaasadeeyo raalli kama nihin in dowladda federaalka oo madaxweynaha ka yahay farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka xaqa iyo xaquuqda ay leeyihiin beesha jareer weyne inay idinka helaan haddii kale intaa daalimnimo ku socotaan waxbana idima suuragelayso. nuur cadow colow oo ah aqooyaan beesha afar makane oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in meelaha ay jareer weyne degaan uu yahay dhul balaaran gaar ahaan 9 gobol oo laga bilaabo Kismaayo ilaa Yiimay dad dhul baaxadaas leh deganna ay tahay xaqdaro in la xaqiro oo lagu tilmaamo nus. haddee maaragtay cadaalad darro la rabane waa mid mataqaan hadda la sheegay oo la fadhiyo saacadan laga bilaabo niman wax dilin lama aqoonsan haday tahay hadda anaga waa noo fuuda inaan mataqaanaa aan muujino hore u kac intana waxaan deganaa Yiimay intana waxaan deganaa ilaa Kismaayo 9 gobol ayaan leenahay jareer tiriis intay la eg tahay waa la ogay waxaan ka shaqaynaynaa saacadan laga bilaabo kuwa shalay wax la waa kuwa xildhibaanada markaan anagana wax lahayn in xildhibaanada aan ka mid noqonayna aaminsanahay waana ku baaqaynaa insha Allah ilaahay idinkiis waxaan idinka rajaynaynaa arrintaas ayada in wax ka qabataan hadalka professor Dalxa hadii wax laga qabo way jareer oo mataqaanaa dib u ka shaqaynaa wala arkaya. waxgaradka beesha afar makane ee maanta warbaahinta la hadlay ayaa dhammaantood waxay taageereen hadal ka soo yeeray xildhibaan maxamed cumar Dalxa oo kaga soo horjeestay habka waxaa qaybsiga ee 4.5 waxay intaas ay ku dareen in professor Dalxa uu yahay xildhibaanka kaliya ee jareer weyne oo ku guuleystay waajibka loo doortay ayna si weyn u garab taagan yihiin. professor Dalxa waa wama jantiile nag awaaye waajibkiisa gutay xaqii adlaha jareer weyne ama dulmiga dulminay ayuu miiska saaray كونا ما أهلا وأنا ما أها مالك كو قلي برلمانك إلا الآن وكتاجين جها حقا إنه هذه أصير لكن ممكن كان تقول الصعوبة وبيراك لك سوق قلايو ويكو كيين كو مكان ما بك حضنا بحق ورياضة كو مكان مياد حق كلها هذه كبدنا ميادنا بالك سوق قلي باش حنيها مكتومية والسوق الشن وحاجة شيء هذه أرنتها سي صار له دائما وين تي أول أي سمينا أنا ممكن شلك سوق قلي ما حدش ما حد عاد كوسوسي إن اللي بتجيب بالك وصومي أنا سميتهم هذه أنت دولة الفيدرال كيف يسويش وزمن حوينك هي لك اللي يراهو محمد عبد الله فرمان أنا هاي باش جرر وين gaar ahaan haddana qowmiyadda ku nool degmada Beledweyne waxaan idin sheegaynaa ereygaas qaab darrada oo aflagaadada wax la yiraahdo 4.5 inaan taageersaneen oo aan taageersanahay midnimo horumar iyo nabad iyo nolol iyo horusocod ayaan diyaar u nahay professorkana hadalka ku hadla aad ayaan u taageersanahay hadday noqoto naf iyo maal inaan ku bixino ayaan diyaar u nahay. nabadoon cabdi yunis bareeg ayaa isna sheegay in haddii uu arinta sidaasi loo dhaami waayo la isku tixgeliyo maxaa soo dishay iyo maxaa soo dhacday ay waji kale keeni karto iyo in dad nabada jeclaa ay dantu ku kalifto ficilo ay ka faani jireen. waxaan meeshan ka cadeynaynaa sidii nimankii ugu horreeyay nabadoonada ay ku hadleen ayaan saddexayna waxaan baaq u diraynaa dawladda federaalka maamulka meesha ay ku hayaan oo guracan waa guracan yaan dhihi karaa
waayo arrin shalay lagu soo dhameeyey yaa wax dilay yaa wax dhacay yaa wax boobay ayagana ay rabaan in hirgeliyaan waa ka soo horjeedna annaga ma yeelayno mana qaadadoono nus iyo waxa ku eg iyo arrimaha u ceenkaas oo dhan naloo sheegi mahayaan waxgaradka halkaa ka hadlay ayaa ahaa kuwo tiro badan waxayna ka mid ahaa aqoon-yahan yuusuf nuur ibraahim fudcade kaasi oo sidoo kale ka hadlay fikrado ku aadanaa sida uu ugu soo horjeedo xaqdarada socota iyo in beesha jareer weyne xaqooda la dhuunsado iyada oo lagu gabanayo hanaan musuq iyo xaqdaro ku salaysan koow xal waaye marka la dhahayo waxay aheeday yaa wax dilay waxa wax lagu qeybiyey gacan ku dhiig lay aheed wax lagu qeybiyey jareer wax ma dilin haddaanan xaqa laga hadlin hadduu wax dilaa runtaa laga hadlayaa awal haddaan dhiigga muslimka badbaadinay aan diidnay inaan macnaha waxaa waaye colaad sokeeye inaan galno hadda waa nagula qasbayaa haddaa la samaynaa hadda anoo nabadoon ahaa ku baaqaaya macnaha colaaddaas in la kaxeeyo li'anna xalkaaba ku jiraba ayada waxa dhan wax laysugu diiday dagaal sokeeye gal ma ahano waa la galayaa macnaha idinkaana lagu hageliseenay xildhibaan dalxaan taageersannahay waa ku ayiidsannahay af iyo idinaan u garab taagnaa qoomiyadda jareer weyne xildhibaanada ku jiro haddaysan xuquuqdooda u doodaynin xaqooda ay u doodaynin kalsoonida waa kala noqonaynaa macnaha waana ka baxayaan meesha yuusuf fudcade ayaa ah aqoon-yahan la aaminsan yahay in wax badan qaban lahaa haddii uu fursad la siiyo kuraasta xildhibaanada ee beesha maadaama uu leeyahay karti aqoon iyo waayo aragnimo lagu kalsoon yahay cabdinuur cismaan aadan carays wadani radio an t v beledweyne